socdaalka wacyigelinta nabadda ee Islaam Bashiir Islaan Cabdille oo ka soo bilowday magaalooyinka Gaalkacyo iyo Buurtinle ayaa gaaray deegaamada Meygaagle Magacle iyo deegaamo kale oo yaryar waxaana socdaalka Islaam Bashiir ku helnay maamulka gobolka Nugaal qayb ka mid ah ergada nabadeynta ee Jubbaland ganacsato nabadoono iyo waxgarad kale waxaana kulamo ballaaran lagu qaatay dhammaan deegaamada ay booqdeen wafdigu dadka deegaamadaasna waxa ay islaamka iyo ergadaba ka ballan qaadeen inaysan wax rabsho ah dib u dhici doonin nabadan ay soo dhaweynayaan Islaam Bashiir Islaan Cabdille Islaam Faarax ayaa dadka deegaamada u sheegay in loo baahan yahay inay ballan qaadaan in aysan wax dhib ah samayn doonin safarka yagaas nabadeed waxaan ka soo bilownay Buurtile waxaanu ugu nimid isimo iyo guurti fara badan oo aan u malaynayo haddaysan ka badnayn inay 100 ku dhowdahay oo u yimid xaaladan oo markay maqleen iyagu isa soo xilqaamay oo isa soo kharash gareeyay oo aan cid kula talin oo qof walba deegaankii iyo meeshii uu joogay gurigiisii iyo dadkiisii intuu ka soo dhex baxay uu Buurtile soo fariistay waxaan u malaynayaa in badan oo ka mid ah inay halkaan idinku yimaadeen markaanu is waraysanay waa soo safarnay oo waxaan noo qorshaysnay deegaan badan inaan marro waxaan la kulannay roob fara badan waxaan noo suuragali weyday meelihii aan ku talagalnay inaan tagno waxaanu shalay goorduhuradii tagnay magaalada Meygaagle waxgaradkii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo dadkii joogay waana soo dhaweeyeen waana la shirnay waana is afgaran waxaan ka soo safarnay Meygaagle maantaan halkaan idinku nimid hadda way inaga shirka ku jira waxaanu idin la soconay baatada halka ka dhacday inaan wax dambe lagu darin oo halkaas lagu dabro arrintaas waxa la rabaa galabta in balan cad lagu kala tago ilaahay horti iyo rag horti cidii loo arko inay nabadaas iyo wixii lagu heshiiyay raalli ku ahayno ama dhibaato wadana hadda waa in meel isaga soo wada jeesto tilaabo laga qaado oo aan la dugsan qof fidna wala ah oo aan dil la difaacin qof fidna wala ah qofku waa shakhsi wuxuu fidnaynayaana waa kumanaan qof iyo deegaan iyo ummad arrintaas in lagu baraarugsanaado la isgaarsiiyo nin walba meeshuu ku caraabaya caawa reerku u tago u warbixiyo dhalinyarada iyo dumarka iyo waayeelka iyo dhammaan meel la joogaba in fariintaas qof walba uu galabta meesha fadhiya xambaaro waxa inta ku xigtaa hadday arrintaas sidaas ku dhamaato in laga wada hadlo wixii dhacay waxa imaan doonta in gogol la isugu yimaado haddii Ilaahay idmo gogoshaas ama deegaankeena ka dhici doonta ama deegaanka baharar samay ka dhici doonta dhinaca kale waxa iyaguna socdaalka nabadeynta galay ergada Jubbaland iyo Puntland oo aaday deegaanka Qorile ee gobolka Sool oo ilaa haatan ku sugan halkaas waxaana la sugayaa in dhawaan ergadu iclaamiso goobtii la isugu imaan lahaa iyo cidii martigelin lahayd shirkaas ballaaran safarada nabadeynta deegaamada Magacle iyo Qorile ee haatan ayaa kuwa ku soo beegmay xilli roob daay ama marka uu daayo waxaana wafuudda labada dhinacba soo wajahay culaysyo dhanka socdaalka guleed jaamac saajid warbaahinta dawladda Puntland magaalada Buurtile